magaalada waxay ku taallaa Bangladesh waxaana lagu magacaabaa Dhaka waa magaalo leh xafnaanta dadka ugu badan adduunka It's right here. It's waxaa ku nool dad kor u dhaafaya 20 milyan 21 million lives in Dhaka. nasiib darro kani waa dalka ugu dikhowga badan adduunka sidoo kale waa magaalada ugu ciriirisan ee dunida magaaladan waxay tahay ka soo horjeedka deganaanshaha buuq iyo sawaxan joogta ayaad maqlaysaa si kastaba ha ahaatee dadka halkan jooga waa dad aad u naxariis badan markaad halkan timaado waxaad baran doontaa cuntadooda iyo dabeecadda dadka magaalada nidaamka traffic light-ku uu ku yar yahay mooto iyo gaadhi ayaa horteeda isku galaya hello. traffic waa wax la yaab leh sidaan u jeedno waa dad dhoola caddayn badan Hello. hadda waxay noqonayaa Bangladeshi iyadoo waxay noqon doontaa Punjabi aniguna aad ayaan ugu faraxsanahay tani waa maalinteena ugu horreysa ee Dhaka caasimadda Bangladesh kani waa dharka dhaqanka ee Bangladesh gaadhigan waxaa la yidhaahdaa rickshaw waxay la mid tahay bajaajteenna laakiin waa manual oo nin keliya ayaa gacmihiisa ku wadaa waxay u muuqataa wax adag oo culus waxay u baahan tahay xoog badan ka fikir sida ay u adag tahay inaad waddo halka dambena laba qof ay ku saaran yihiin way adag tahay So this is called a Bhelpuri. It's like a classic over here. tani waxaa la yidhaahdaa Bhelpuri waa wax klaasiga ka ah magaalada waxay leedahay qajaar iyo basbaas masaajidka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Azaan Maskiyo asal ahaan waxaa halkan deganaa Nawaabka Dhaka kana waxaa guri madaxtinimo oo u dhignaa qasri Be a ballad. waa asaan meeskiyo markii hore waxaa dhisme baarlamaan oo midabka binki ah waa qasri astaanta binkiga ah oo ku yaala banka webiga The Buri Ganga. tani waxay ka timid xilligii ingiriiska markay maamulayeen dalka halkan iyo sidoo kale hindiya iyo baakistaan markaas waxay ahayn hal dal laakiin markii ingiriisku ka baxay waxaa loo kala qaybiyey iyadoo lagu salaynayo diinta dadka badankooda ka hor inta aan la odhan Bangladesh waxaa la odhan jiray East Pakistan ka fikir dalkan wuxuu helay madax bannaani sanadkii 1971dii Bangladesh waxay heshay madax bannaanideeda sanadkii 71dii dalkan laga bilaabo 1955 ilaa 71dii waxaa loogu yeedhi jiray East Pakistan markii ingiriisku ka tagay waxay xuduudaha u kala qaybiyeen sida ay doonaan kala qaybiyey diinta dadka galbeedka Hindiya waxay noqotay dal madax bannaan waxaa loogu magacdaray West Pakistan dhanka bari waxay ugu magacdareen East Pakistan country split in two, separated by 1,000 miles of another nation, the Republic of India. waa dal laba qaybood ku kala qaybsan oo kala fog kuwani waa dad madax bannaan sababo la xidhiidha takoorida ka soo mareen Pakistan si ay u taageeraan waxay ugu magacdareen Bangladesh maadaama ay yihiin Bengalis iyo Dash oo micnaheedu yahay laan amba dhul kadib markii la helay madax bannaanida dalka waxaa dhacay gaajo ba'an qofna si habboon uma maamulin tan iyo markii guud ahaan gobolka uu qayb ka ahaa Hindiya uu gumaystay Ingiriisku ilaa madax bannaanidii uu ka helay Punjabi bache. হ্যাঁ পাঞ্জাবি markaa tani waxaa la yidhaahdaa Bakar Bakar Khan Khani, yeah. haa Basically, Bakar there was Khan like a asal ahaan general waxaa jiray jenaraal la yidhaahdo named Bakar Khani. iyo daantar They la yidhaahdo fell in Zani love. waxay isjeclaadeen Made a wuxuu dish sameeyey called cunto la Bakar yidhaahdo Bakar Khani It's like- waxay u eg tahay roodhi laakiin way ka macaan tahay waxayna ku daraan sonkor tani waa Choto Puchka oo mid ka mid ah cuntooyinka fudud ee ugu caansan subcontinentiga marka loo fiiriyo Bangladesh Pakistan iyo India waa wax cajiiba oo basbaas leh anigu hadda waxaa noqday mid iska caabiyey tani waxay ku taallaa bartamaha waddada ee Dhaka Masala. dhammaan cuntada halkan waxay u muuqataa mid aad iskugu dhow ma ka heshay Puchka. Bismillah. waaw waxay u muuqataa mid fiican waa wada basbaas waxay leedahay xawaash badan oo ay la socdaan basal iyo qajaar isagoo ima ogolaanaya inaan lacag bixiyo For anything. waxaa dhacay shil Accidents. Accidents. Shit. Oh shit, dude. Oh, In the name of God. this bug, bro. waxaan ka helay magaalka saaxiib waxaan jeclaaday dhaqdhaqaaqa iyo mashquulka magaalada hagaag Dhaka sidoo kale waxaa loogu yeedhaa magaalada Modus waxaan u degnay waddada si aan u tijaabinay cuntooyinka maxalliga ah sida biryani iyo tiyari cuntooyinka waxaa loogu soo bandhigaa caleemo ka samaysan jackfruit anigu waxaan ahay biryani guy maanta waa maalintii biryaniga
qaybo waaweyn oo baradhaha ayaa ah maadada ugu muhiimsan ee cuntadan sababta cuntooyinkan waxay caan ku noqdeen xilligii dagaalkii labaad ee adduunka cuntooyinkan waxay muuqataa mid aad uga macaan kuwii hore mudana cuntooyinkan waa kuwa uumaya magaalada waa mid aad u dakhow badan wasakh iyo cidhiidhi labaduba way ku kulmeen ma jiro qof kasta oo samri kara inuu halkan ku noolaado si kastaba ahaatee dadkeedu waa kuwa aad u naxariis badan oo kala duwan waa inaad leedahay difaac jireed oo xooggan waa inaad dulqaad muujisaa waxaan ku bilaabi doonaa makhaayaddan la yidhaahdo bismillaahi khabiib ilama muuqato mid nadiifa ma garanaya sida beed nadaafad ahaan u eg tahay Bismillah. It's written Bismillah. salaada waqtigeeda ha lagu tukado Mama means uncle. Mama! Like uncle, right? Yeah, brother. Looks good. Yeah. digaag la shiilay oo lagu daray xawaashiyo Bangladeshi ah Spices. The spices, yeah. Really? Yeah. You're making fire? 18 xawaash ayaa ku jira waxaan ta saaraynaa dab waad gubaysaa dabadeedna afka ayaad gelinaysaa okay waxay yidhaahdaan tani waa wax walba way nadiifisaa waxay nadiifin doontaa dhammaan wixii aan maanta cunay waxaan bilowno Shabash. Yes. Right. Well, haye asxaabta maanta waxaan joognaa guri Bangladeshi ah Okay. This is Nadia. aad baad ugu mahadsan tahay inaad na marti qaaday You're welcome. waxay noo diyaarisay cunto aad u badan oo dhammaystiran goobtan waxay ku taalaa Dhaka halkan waxaa ka jira fasallo bulsho oo kala duwan I'm invited also tomorrow, or? Every day. As long as you are here, you can come for lunch, for breakfast, for lunch, for dinner. Can I rent a room here? Yeah, you don't have to. I was just telling him that you can just stay there. waad ku mahadsan tahay inaad timid Bangladesh kamaradu waa shidan tahay sidaa darteed waxaan kama odhan karaa adiga keliya waxyaalaha fiican ma sheegayaa